ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ka dhacay caasimadda Soomaaliya Muqdisho 4 dhimasho iyo 11 dhaawac ayaa la xaqiijiyay. Weerarkan ayaa wuxuu qayb ka yahay iyadoo al-shabaab kor u qaaday labadii toddobaad u dambeeyay weerarada ay ku qaadayaan Soomaaliya iyo Kenya. Beel sheego ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay. ayaa ka kacay hawada sare ee Muqdisho kadib markii uu gaari ay walxaha qaraxa ka buuxaan uu ku qarxay bor control saake waqti zaxmad ah. gawaarida gurmadka degdega ayaa hore ugu degdegay isgoyska. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. waxay sheegeen inay bartilmaameedsanayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda. abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliyaa jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari halkani oo uu ka dhacay qaraxii saaki ayaa wixii aad ugu dhowdahay goobaha dawladda ee aad kala ilaaliyo. weerarka saaka wuxuu astaan u yahay in wali xaaladda amni ee dalka ay tahay mid aad u adag. sidoo kale waxa uu saameyn ku yeelanayaa dalka Kenya oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya. warbaahinta Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegtay in saacadihii la soo dhaafay ee dawladda Soomaaliya ay fulisay weeraro iyadoo ay kaashanayso dawladda Mareykanka oo looga jawaab celinayo weerarkii al-shabaab ku qaadeen saldhigga Lamu. kani waa weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhaca magaalo wali ka soo kabanaysa qarax gaari kale oo ay ku lafwaayeen 9 qof 11 maalmood ka hor. dadka magaalada Muqdisho wali waa ay murugoonayaan balse waxa kale oo jirta carab ku aadan in dawladda ay awoodi kari laadahay sugidda nabadgelyada dadweynaha. waliba si qayaxan iyaga uga dhiidhinaya dadweynuhu waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo ka soo horjeestay ciidamada geysanaya dhibaatooyinkan. beel sheego BBC Muqdisho.